kula wacan daawada waa mar kale iyo xogta qarsoon maantana waxaynu ka hadli doonaa dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya colaadda Tigreega maxaa hadda la gudboon Abiy Ahmed kaalinta Soomaalida ee dagaalkaas walwalka iyo sidoo kale waxyaabaha abuuray awoodda sii badanaysa ee ciidanka Tigreega iyo sidoo kale inay sii yaraato awoodda ciidamada federaalka qodobada saldhigga waa qalalaasahan muddada dheer socda warbixin guud ayaan ku eegayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed go'aanka bixistii joogista adiga ayaa leh balse waan kaa codsan lahaa inaad ila sii joogto oo aad channelka subscribe saarto si aan kuugu soo gudbiyo xogo dhammaystiran kagana mid noqoto daawadayaashaan halkan warbixinada ugu soo gudbiyo dalka Itoobiya waxaa ka socda colaad daba dheeraatay taas oo u dhaxaysa Tigreega iyo sidoo kale dowladda federaalka dib u qabashadii magaalada Makalla ee xoogaga Tigreega waxay fallaagadu u tahay guul muhiim ah oo ay gaareen 8 bilood oo socday dagaalkii waqooyiga Itoobiya kaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof malaayiin kalena u hooseeday inay baahdaan mucaawinana ay u baahdaan ma laga yaabaa in tallaabadan ay dagaalku u yeesho weji kale waa su'aasha taagan dowladda Itoobiya ayaa ciidamadeeda kala baxday gobolka kadib dagaalo bilo socday taas oo dhalisay dabaaldegyo ka dhacay wadooyinka caasimadda gobolka Tigray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa markii hore sheegay in ka bixitaanku ahaa tallaabo istiraatiiji ah maxaa yeelay magaalada hadda wixii ka dambeeya ma noqon karto xarun dagaal oo muhiim ah balse markii dambe waxaan xaqiijiyay inay tahay in laga fogaanayo khasaare kale hor leh ayuu yiri waxaan aragnay isbeddel aad weyn oo ku yimid dagaalka yiri Will Davidson oo ah falanqeeyo sare oo ku sugan dalka Itoobiya kana tirsan kooxda xasradaha caalamka waxay muujinaysaa in dowladda dhexe aysan awoodin inay qabsato Makale ama ay garwaaqsatay inay dani ugu jirto inay ka baxaan gobolkaas taasi waxay ahayd marka loo eego guulaha muhiimka ee laga gaaray dagaalka hay-adaha bini'aadanimada ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan kara dagaalka haddii aanan la kordhin gargaarka aan si dhaqso leh loola gaarin in ka badan 350,000 oo qof ayaa wajahaya xaalado macluul ah iyadoo qiyaastii 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah khubarada ayaa sheegaya in hogaamiyaha Itoobiya hadda wixii ka dambeeya uu diiradda saari doono waxa ka dhacaya gobolka Tigray iyo khilaafka u dhexeeya kacdoonka Tigreega iyo ciidamada ka socda gobolka dariska la ah Amxaarada waxay ka mid tahay qoomiyadaha ugu waaweyn dalka Itoobiya dhulka barwaaqada ee ku teedsan xadka gobolku la wadaago Tigreega muddo dheer ayaa lagu murmayay oo ciidamada gobolka Amxaarada iyo maleeshiyooyinkooda ayaa isku dayay inay dib u hantaan qaar ka mid ah dhulkaas Ian Medvedev oo ah falanqeeyo ka tirsan kooxda la talinta amniga ee International Group ayaa yiri garabka Amxaarada ee barwaaqada waa mid ka mid ah labada xisbi ee ugu awoodda badan Mr. Davidson ayaa sheegay inay jirto sabab kale oo dowladda dhexe ay diiradda u saarto gobolka Amxaarada oo xuduud ay la wadaagaan dalka Suudaan maxaa sababay awoodda ciidamada oo sii yaraanaysa waxaa caddeyn ilaa iyo haatan heerka uu gaarsiisan yahay awoodda militariga Itoobiya 8 bilood ee lasoo dhaafay ee dagaalka jabhadda ayaa sheegatay in dhawaan ay dhexdhexaad ka dhigtay 10,000 oo askarta Itoobiya oo weerarka ay ku qaaday bishii Juun ma aysan caddeyn intaasi ay la micno tahay in askartaas la dilay ama loo qabtay maxaabiis dagaal balse si kastoo ay ahaataba khasaaraha soo gaaray ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ayaa u muuqda mid culus Alex Diwal oo ah agaasimaha Flint hay'adda samafalka World Peace Foundation oo saldhigeedu yahay magaalada Boston ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay waxa uu ahaa ciidan ka kooban 20 qaybood waa ciidanka Itoobiya 7 gabi ahaanba waa la burburiyay saddexna waxay ku jiraan xaalad burbursan waa mid ka mid ah su'aalaha $1 milyan ayuu yiri Mr. Davidson runtii ma ogin laakiin waxaan u maleynaynaa inay tahay sawir qurux badan oo walwal gelinaya ciidamada federaalka waxaa jira hoos u dhac weyn iyo waliba niyad jab marka la barbar dhigo maqaamkeedii hore Itoobiya oo ahayd nabad ilaaliyo gobolkan oo aad loogu qiimeeyo militarigeeduna hadda si aad ayuu liitaa ayuu raaciyay waxaa hubaala in Itoobiya qarashka ugu baxay dagaalku waa mid aad u badan cadaadiska beesha caalamka ayaa sii kordhay talaabooyinka xiga ee Mr. Abiy uu si dhow ugu hayn doono beesha caalamka ayaa oo muddo badan walaac ka muujinaya dhibaatada loo geysanayo dadka shacabka ee Tigray saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda dhawaan ka dhacday gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ay sababtay macluul saameyn weyn ku yeelatay qiyaastii 400,000 oo qof
kulan uu xalay arrinta gobolka Tigray ka yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in suurtagal ay tahay in colaad hor leh halkaasi ka dhacdo inkastoo horaantii isbuucan ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. kusimaha madaxa gargaarka bini'aadanimada ee qaramada midoobay Ramesh Rajasingham ayaa golaha amniga u sheegay in xaaladda Tigray ay aad u xumaatay toddobaadyadii la soo dhaafay. dowladda shisheeye oo ay ka mid yihiin maamulka Biden ee Washington ayaa cadaadis saaraya xukuumadda Addis si loo hubiyo in xaaladda amni ee Tigray ay soo hagaagayso, taas oo u ogolaanaysa in gargaar la gaarsiiyo malaayiinta qof ee u dhimanaya cunto la'aanta. haddii aysan hagaagin Itoobiya iyo Eritrea waxay kasii fiirsan doonaan tallaabooyin kale, ayuu yiri Robert Godek, ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika. ma istaagi doono dagaalka naxdinta leh ee ka jira gobolka Tigray-ga. maxaa ka jira ciidamada Eritrea ee ka dagaalamay gobolkaas? ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa horey u qirtay in ciidamo ka socda dalka ay dariskiin Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigray kadib markii dagaalkii bishii November muddo bilo ah iyo labada dhinac ama dal beeniyeen ciidamadaas ay ka gudbeen xadka. Abiy Ahmed ayaa u sheegay mudanayaasha baarlamaanka in ciidamada Eritrea u yimaadeen ayagoo ka baqaya in weeraro ugu yimaadaan dagaalyahanada gobolka Tigray-ga. iskahorimaadkan ayaa bilowday kadib markii jabhadda xoreynta dadka Tigray-ga TPLF ay qabsatay xarumo ciidan oo ku yaal gobolka. xasilooni darada ka jirta guud ahaan geeska Afrika ma wax cusub, balse waxaa jira cabsi laga qabo in xaaladda ay kasii darayso oo Itoobiya saameyn ku yeelato dhammaan gobolka. ilaa iyo hadda ra-iisul wasaare Abiy ayaa xukunka haya, laakiin haddii ay taasi isbedesho cawaaqib xumadu waxay noqon kartaa mid musiibo leh, ayuu yidhi Master Davidson. haddaba dhinaca kale, Mareykanka waxa uu sheegay in ciidamo Soomaaliya ay ku sugan yihiin halkaas. Mareykanka ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya, taasoo horey u beenisay xukuumadda federaalka. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa weydiisay Robert Godek oo ayaa ku-xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Afrika waxaa ka jira kulug lahaanshiyaha la sheegay in ciidamo Soomaaliya ah ee dagaalka Tigray qayb ka yihiin. Godek oo su-aashaas ka jawaabay ayaa yidhi, waxaan ka warqabnaa in ciidamo Soomaaliya ay joogeen Itoobiya, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaalka qayb ka qaateen iyo in kale, balse waxaan xaqiijinayaa arrintaas, ayuu yidhi. Ilhaan ayaa mar kale weydiisay Godek sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Itoobiya, wuxuuna ka jawaabay, waxaan rumaysanahay in ciidamadaas ay yihiin kuwa Soomaaliya ee tababarka ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhexmaray labada dowladood. warbixin dhawaan ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo tababar ku qaadanaya saldhig military oo ku yaal Eritrea ay suurtagal tahay inay qayb ka qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. qaramada midoobay waxay sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in ciidamo Soomaaliya lagu arkay dagaalka magaalada qadiimiga ee Aksum ee Tigray ayagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada Eritrea. waxaan helnay macluumaad iyo warar ku saabsan in ciidamada Soomaaliya lagu soo daabulay saldhig military oo ay tababar ku qaateen oo ku yaal Eritrea si ay ugu biiraan dagaalka Tigray, waxaana ay la socdeen ciidamada Eritrea, ayuu yidhi. wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa arrintaas marar hore beeniyey, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu guddi u saaray arrintaas si loo soo hubiyo. haddaba su-aasha la isweydiinayo qodobada saldhigga u ah qalalaasaha Tigray-ga. Itoobiya waxay u qaybsan tahay 10 dowladood. xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka iyo gobolka Tigray-ga oo ay hogaamiso jabhadda TPLF ayaa bilaabatay kadib markii ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu xukunka qabsaday bishii Abriil 2017. TPLF oo mar awood badneed maamuli jirtayna dowladda in ka badan 27 sannadood waxaa booska ka saaray Abiy. 3 bishii November 2020 ayay ciidamada amniga ee gobolka Tigray weerareen saldhigyada ciidamada qaranka ee Tigray. Mr. Abiy wuxuu ku dhawaaqay khilaafka dabayaaqadii bishii November, balse dagaalku wuxuu socday tan iyo markii la qabtay doorashooyinka qaran ee 21 Juun. xoogaga kacdoonka ee daacadda u ah jabhadda xoreynta Tigray ayaa waxay qabsadeen magaalo madaxda gobolka Makalla. in ka badan 350 qof ayaa wajahaya xaalado macluul ah, iyadoo qiyaastii 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. hagaag daawadayaal, guud ahaan warbixintani waa naga intaas. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkeena aragtay, waxaan ka codsanaynaa subscribe. nabadgelyo.